insha Allah de marka ma garanaysaa ololaha yimaado iyo doorashadu ay bilaabmaysaa ayuu dadka la soo jimciyaa oo la yiraahdo isu kaalay oo soo baxa marka imika dadkii uu kala maqan yahay xoolihiina ayuu ku kala maqan yahay waxaan soo dhaweynaa xisbigan waan soo dhaweynaa aadna waan ugu mahadnaqaynaa haddaynu nahay reer Balciise waxa loo baahan yahay inaan layna qaldine meeshii ay wax ku jiraan aynu aad uga fiirsanno waxa lagu kala baxayaana waa codkuna wuxuu u baahan yahay aad inaad uga fiirsato halka aad ku hubsanayso maanta rajadu xisbiga imika aad idinkuba ka dhawaajiseen baa loo filayaa waxa aad aan idinku codsanayna wanamayo kaam walba intuu gashado buu ku leeyahay xisbiga kaam walba intuu gashado haddaad yaraysatana waa lagu yarayn haddaad badsatana waa lagu badin waxaanu aad idinku soo dhaweynaynaa oo mar walba idinkula taleynaa bal wax rogrogo halkii wax yaallaana waad in badan miidiyaha waad la socotaane aad uga fiirsada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا فرنا ضدك أنتي إذا كم قنايد حسبي دولة دوية حسبك وأنا حسبك صوب حياة ضدكم واحد وناكسن واحد دولة الشقين دونتها إن واحد درصد إن بدن بين معارض هين معارض ما دي هراء حسبيني بقى بين دين بدن تاجريني ما أنت حسبيني نوا وجهه لكن ده ما صفة صوب حياة وما waxaan ku tagnaa inaynu xisbiga dawladda wax gashano intii hadhow tala caban lahayn xisbiga kulmiye ee soo baxaya ee qabanaya hogaanka wadanka aynu hadda wax ku darsano hayaanku meesha u socdo aynu raacno wax kale aynu hareemo aynu isku dardaarnaa ma jirto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا ديارنا حسبنا كلمية سيدنا وشاد وين لهين أمانو بقى قادم لهين تاجر جيس لما تد تجمد الدكتور كله اللي هو كلمية كلمية الدجاج كم بلي متان ما تجمد بلي متان waxay wacyigeedu hore u ahaa baanu idinka warramaynaa waxaanu idinkaga warramaynaa wixii ay hore u boosteen oo ahaa maanta inagu waxaynu nahay haddaynu degmada nahay oo aynu afkaarteennu qusaysaa oo aynu taageersannahay xisbiga kulmiyada intaa ka bacdi dadku mar kastoo ay joogaanba mar
marka ay dhaqdhaqaaqyo jiraan amba ay hawlo jiraan ibni aadamku wuxuu kaga duwan yahay xawayaankii xoolaadee talu leey annagu haddii aanu nahay reer ballimataan waxaanu ku tashannay maanta shakhsi kasta oo ballimataani wuxuu moodayaa haddii xusbiga kulmiye uu soo baxo inuu isagu madaxweyne yahay kulmiyaanu nahay kulmiyaananu taageeraynaa walaalayaal anigu waxaan ka imid qurbaha london baan ka imid maalintii ballimataani ugu dambaysay tirada dadkan intan leegi may joogin dad aqallada intan leegina kamay dhisnayn way ka yaraayeen waxaan arkaa waqtigii dawladdii udub ka dhisnay dalkan buu ahaa maanta se waxaa muuqata horumarka ballaadhan ee ballimataan ku tallaabsatay intii xukuumadda axmed maxamuud siilaayo dalkan ay ka talinaysay xusbiga kulmiye waxa uu gaadhsiiyey degmadan ballimataan inuu u magacaabo degmaaha walaalayaal waxay soomaalidu tidhaahdaa dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa waxa weeye degmadan ballimataan waxay taageersan tahay sida nooga muuqata xusbiga kulmiye waa kii magacaabay waa kii dhisay kii la dirirayeyna waa waddani walaalayaal kaan ka raallida ahayn waa waddani aan ogolayni waa waddani reer ballimataan waxaan leeyahay ballimataan uma baahna in loo abtiriyo waxay u baahan tahay in loo arrimiyo ninkii hore ugu arrimi waayey ee maanta abtirsiiye wax kaga doonayeen waxaanu leenahay cid u arrimisay oo ehel yihiin oo kulmiyaa ayay ballimataan ay taageersan yihiin hana ku mashquulina waqtina iskaga lumina marka labaad waxaan idin leeyahay ballimataan tuulo yahay tuuladuna waa caddaysimo waxaa caddaysimihii ka saaray oo degmo ka dhigay xukuumadda axmed siilaaye xisbiga kulmiye madaxileedka dambe musharax muuse biixina sida halkan ka sheegteen dee ninka maanta degmo kaa dhigay ayaa birina gobol kaa dhigaya بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونصر ويننا حسب حاكمك ترى الصومال لين هيا diyaar baan u nahay inaan waxdi la qabanno maanta safar baan ka mid iskuul cusub iyo waxaan soo furanay ayaan soo furanno ballimataan laga hirgeliyay laakiin ciday wax gacanta ugu jiraan baa wax kula qaban karta xukuumadday maanta wax gacanta ugu jiraan xisbiga kulmiye xisbiga xaakimka ah ayay gacanta wax ugu jiraan kaasaa wax kula qaban karaya magaaladan Qorjabley waxay la mid tahay magaalooyinka magaalada Hargeysa koonfurta ka xiga oo runtii aan laamayno ku walina meel yara guluca ku yaala waan idin dareemaynaa inaan horumarkii u mudnaydeen aan halkan la soo gaarsiinin laakiin waxa ogaataan dawladda Soomaaliland oo aan aqoonsi haysan dawlad curdina ah wixii la gacanta lagu hayaa inaanu dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland u qaybsamayn oo qolo walba wixii ay horumar u baahato aanu gaadhay waa la soo socdaa deegaanaduna wax horumarku ay ku kala horeeyaan waxaana u kala mudan yihiin hadba sida dadka ka u dhashay ugu kacaan qurbajoog hadday yihiin hadday madax yihiin iyo hadday mas'uuliyiin yihiinba sida la socotaanna deegaanadeenan guud ahaanba awal waxa uu codeyn jirtay xisbiga mucaaradka madaxweynayaashuna markay kursiga fadhiistaan waxay dib u eegaan goobihii laga doortay waxay ka horeysiyaan goobaha kale waxaa doorkan aad iyo aad aan ugu rajo weynahay inuu teeramkiisii labaad guulaysan doono xisbiga talada dalka haya kulmiye waxaanu aad iyo aad idinka codsanaynaa oo uguna rajo weynahay inaad doorkan barbar istaagi doontaan marka codkiina halkaa ku hubsataan waxa xaq u leediin codkii aad bixiseen inaad ka daba timaadaan inaad nala xisaabtantaan
inaa waxqabad sida ummadaha kaleba ay u doonayaan iyo deegaanada kale inaa ku tartantaan waxaanu nahay sharmaarka aadan ruuxa baalka xagga markaa waxaanu leenahay annagoo ah deegaanka sharmaarke haddaan ahay muuse maxamed maxamuud oo ah guddoomiyaha deegaanka sharmaarke taageero buuxdaanu siinaynaa xisbiga kulmiye talanteenu waxa weeye inaynu xisbiga kulmiye soo saaro inaynu taageero musharaxnimada muuse biixi inaynu taa ka dhabayno inaynu iska ilowno asxaabta kale waayo waxa weeyaan hore loo dabkii baxaya dadka lagu qabsadaa in badan baynu mucaarid soo ahayn reerka iyo beeshu mucaarid dambe uma baahna waxaynu u baahanay dadka in wax la qaybsanno deegaanadeenu deegaanada kuwa ugu hooseeya weeyaan si aynu waxaa uga qayb galno waa inaynu hadda ku xidhannaa dabkaa baxaya waa inaynu taageeraa oo ka dhabaynaa halkan hadalka badin maayo hadalka intiisii hore waa la yidhi laakiin mid baan idiin sheegaya midkaa aan idiin sheegayaa xisbigani waxa weeye xisbigii horumarka xisbiga kulmiya maanta wuxuu jeexay waddo wanaagsan oo horumar lagu gaadhay bidhaan bay inoo tahay cadaalad bay inoo tahay horumar bay inoo tahay walaalayaal in badan baynu mucaarad ahay mucaaradnimo halkay salka ku haysa waa garanaysaan mucaaradnimo miyayna lagu hadlaynayaa waa inoo xisbiga kulmiye iyo farteenna waxaa laydinka doonayaa dee idinkana maxay ahayd muqaabilkeedii oo maxaya dee fartaa inaa ugu ridaan maxay ahayd xisbiga kulmiye musharaxeena muuse biixi cabdi aniga iyo nin halkaa fadhiyo cabdirasaaq la yidhaahdo saaxiib gaaraanu nahay oo waxaanu dabageli doonaa muuse markuu soo baxo insha allah sida daadkaa loogu qolqolay biyo meel godan bay isugu tagaane imanka waa tigaadayadaa hilaacdee maxay ahayd kulmiye hilaaciye waxaan leeyahay marka uu maxay ahayd soo baxo balli mataan lama mid aha maxay ahayd degmooyinka waayo waa meesha keliya ee aanan ku arag calan casoo ka taagan taasi waxay nadiir u tahay dee haddii ay cudi u joogta ismay qarseena bilibiligta yar baynu maqlayneen iyo casaanka meelo kaleba oo ku soo arkayne annaguna dadaalkayaga insha allahu waxba kala hadhi mayno degmada ballimataana xukuumaddan maanta talada haysa meel bay runtii ugu suntan tahay degmanimadeedii baa laga shaqeeyey waxa weeye iskuulka wixii lagu qabanayay baa laga shaqeeyey dhismayaasha kale waxa weeye laga sameeyey bay dawladdu runtii kaalin weyn ka qaadatay annagu dadaalkayagana insha allahu waanu labanlaabaynaa dadka reer ballimataanna waxaanu ka rajaynaynaa inay iyaguna na gacan siiyaan oo doorashooyinkiina way soo socdaane ay garabka iyaga istaagaan oo insha allahu xisbiga kulmiye codkooda siin doonaan annaguna ballan waxaanu ku qaadaynaa inaanu fulinno wixii ballanqaad ahaa inaanu hirgelinno degmada ilaa inta gobol noqonaysa insha allah sanadkana inta hadhay sanadka dambe insha allahu macallimiinta la sheegay iyo gunnada iyo dhammaan wax kasta oo asaasi ee degmadana leedahay wasaaradda waxbarashada waa ka helaynaa gacantaynaynu ku haynaa insha allahu tacaala waxaa kaloo aan ku darayaa wasaaradda biyaha runtii waxaa noo qorshaysan ballimataan intii aan wasaaradda joogay waxaanu u qornay oo u qorshaysan in 2 ceel laga qodo waxaynu ognahay ceelasha ballimataan laga qodaya waa ceel dhanaan ceelkaa dhanaan 2 ceel baanu u soo ballan qaadnay in laga qodo ceelasha dhanaan waxaanu ugu talagalnay in xooluhuna ka cabbaan agabka kale ee maryaha iyo masaxaadaha iyo wax kalena lagu qabsado waxaanu ugu talagalnay cabbitaanka biyaha laga cabbayo ummaddu munaafacaadsanayso inaannu balligana weynayno balli kalena ka aqoodno oo casri ah oo aanu dhigno boco mishiinno lagu xidho oo uu leeyahay solar system labadaabana waannu idiin ballan qaadnay gacantaanay ku jiraan runtii waxaan filayaa garaadka yidhi ha laga daba tago oo waannu ka daba tegaynaa mustafa garaado waxaan leeyahay taana waad ka daba tegi doontaan insha allah haddii la yidhaahdo marka xukuumadda iyadu soo noqoto shaki nagagama jiro inay soo noqoto xukuumadda axmed maxamed maxamuud siiraayi hogaaminayo runtii waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo halkan u gartay inuu degmo ka dhigo